iyada oo uu maanta xisbiga wadani u lahaa ololaha isu soo baxa doorashooyin ayaa taasi beddelkeeda xisbiga wadani waxa uu maanta u sameeyay in uu dareenkooda la qaybsado dadka jilicsan kuwa iyo weliba dadka xanuunsan ee jiifa isbitaalada iyo wadooyinka oo xisbiga wadani dadkaasi gaarsiiyo deeqo isugu jira neef geel ah xoolo iyo weliba deeqo isbitaalka Maandey ee magaalada Burco oo ahaa goob lagu daryeelo dadka qaba cudurka dhimirka ayaa waxa ay mas'uuliyiinta ka socotay xisbiga wadani maamulka isbitaalka gaarsiiyeen neef geel oo loogu talagalay in loo qalo dadka qaba cudurka dhimirka xogayaha arrimaha gaarka ah xisbiga wadani Xuseen Asad iyo Ayaan Cali Xuseen oo kamid ah madaxda xisbiga wadani ayaa ka hadlay waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan siinayna dhakhtar Maandey ee Burco dhakhtarka dhimirka dadka jiifa ama la daryeelo ee jooga in xisbiga wadani anagoo ka soconna anigoo ah xogayaha arrimaha gaarka ah Xuseen Asad iyo Ayaan Cali Xuseen Anwar Sheekh Cabdalle iyo Ikraan waxaan guddoonsiinaynaa gudoomiyaha dhakhtarka Maandey awrka hilibka ah oo xisbigu ugu deeqay in maanta ay ku qadeeyaan jiifka jooga dhakhtarka Maandey Burco maanta waxaan joognaa isbitaalka Maandey waxaan joognaa dhimirka aha xitog dheer sida uu gudoomiyaha maamulaha hore u sheegay waxaana awrka ugu deeqnay tan xisbiga wadani waxaan kaloo idin sheegaynaa sida hore u sheegay aad korka ka taabatay inaan nahay xisbiga horeeyay ee keenay ama soo xusay dadka dhimirka ah anagu waxaan wadanaynahay waxaan rumaysanahay xisbigu inuu dadka Soomaaliland jooga oo dhan ka xanuunsanaya ka aan xanuunsanayn mid waliba waa Soomaaliland kana maanta liita marka waxaanu garanay iyagu inay mudan yihiin in la daryeelo horta markaanu hadii Ilaahay yiraahdo aan qabsano maamulkana aan wadanka qabsanana annaga waa qodobada ugu horeeya wax ka qaban doono dadka dhimirka ah dhalinyarada ciidamada sidoo madaxweynaha iyagu hore u sheegay yiri 250 ayaan mishaarkooda u kordhin doona waxa weeyaan waxyaabaha badan ee ugu horeeya inta liidato horta in kor loo soo kiciyo qaar ka mid ah dadka qaba xanuunka dhimirka iyo waliba waalidiinta waqtigaasi gudaha isbitaalka Maandey ayaa celiyay deeqdani waxaana hadaladoodii kamid ahaa dadka ku boorinaya inay ka warhayaan dadka dayacan dhimirka meel suuqyada wareegaysanaya cid lahayn hoy lahayn gidaarada hoosta jiifta dadka dayacan aad iyo aad looga warhayo oo waxyaabaha Ilaahay nagu naxariisanayo ummadana waxaan u baahanahay ummad walaalo oo isu saafeeran helo waxaan ka digayaa miidiyaha la iska caayayo dadka loola ka shaqeeya iska caayaan muslimiintu is caayamaha qofka muslimka waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa laga magan galo amaan halaysa siiyo amaankana halayla Ilaahay naga yeelo dhamaanteenba kuwa ifka iyo aakhirada guuleysta madaxweynaha mustaqbalka ee nagu soo socda ee gobolka Togdheer Burco imanaya ee maantana ku soo muuneeyay awrka loo qalaya dadka anagu se guriga dadkii noo jiifana ka qaylahay dawlad khayr qabta nooga dhigo Cabdiraxmaan Ciro Ilaahay kor ha u qaado adawgiisana cagta hoosta hamar geesta kalena agaasimaha isbitaalka Maandey Naasir Maxamuud ayaa u mahadnaqay xisbiga wadani waxaana hadaladiisii kamid ahaa intii waa arkaysan awrka waxa loo keenay xisbiga wadani dadkii meesha ku jiraan oo maskax ka xanuunsanaya ama dhimirka xanuunsanaya waxay ku noolyihiin community contribution raad ama waxay bulshadu u keento inta badan ku noolyihiin waxaan ku haynaa dad fariid mar soo jira oo meesha seexda iyo qaar gudooya awood bashinka oo socodka gudooya ka meesha seexda waxaan isbitaalku wuxuu furay marka ilaa 2008 dadka gudooya waxay marayaan 14 in ka badan waxaan waa lagu soo noqdaa meesha marka waxaan aad iyo aad ugu helnaa xisbiga wadani oo noo keenay awrkan intii wuxuu kamid yahay xisbiga qaranada ka jira wadanka laakiin waxay noo keenay awrkii ugu horeeyay ee noo keenay geelba xisbiga wadani noo keenay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa ilaa madaxiisa ilaa majiisa dhinaca kale mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayaa deeqo noocan oo kala safar ugu baxay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyadoo ay xusid mudan tahay inay waftiyadaasi kala hayeen 3 wafti oo ay kala hogaaminayeen hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan madaxa kaambeynka gobolka Togdheer Ibrahim Yuusuf Tiiriye Jirde iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamed Xasan Saleeb Bandoob oo ay 3 wafti ay kala tageen deegaano kala duwan oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waa Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga SBS magaalada Burco.